qof ADHD qaba in aad ku dhahdid list la sameey si aad u xasuusto waxyaalahaada waa runtii waxaan is dhihi karaa waa tala aan fiicnayn sababtan aan ku sheega waa adoo dhahday qof asma qaba ama neef qabo hey deep breath le sameyno macnihii neefsa le adigoo dhahday waay so dhibaatada ma ahan listiga la qoraayo ma ahan dhibaatadu waxay tahay so ADHD-ga wuxuu ataagarayaa ama uu haystaa waxaa la yidhaha executive functionka waay waa meesha laga xukumo waxyaalaha oo dhan executive hadaa maqasho waa meesha White House-ka camal waay meesha lagu xukumo Mareykanka camal waay soo ma so meesha laga xukumo dhan ayuu ADHD-ga ataagarayaa so marka listiga aad samaysay waxay u baahan tahay listigii aad samaysay listigii horta kow inaad ficilkiisa aad bilaawdid waa kow labo waa in aad ma aragtay dhahdid meeqa igu qaadanaysaa macnaheedu inay waxaan iga dhamaadaan saddex waa in aad iska celisaa waxyaalaha markaad waxa aad samaynaysid waxyaalaha oo distracting ka dhigayaan oo macnaheedu kusoo galayaan waxyaalaha oo ma aragtay oo stimulating maskaxda ay rabto waa inaad joojisaa afar waa in aad ma aragtay aad soo xasuustaa listigii meesha kuu maraaya inaad soo xasuustid waaye afartaas aan sheegay intaba ADHD-ga wuu ataagarayaa intaba ADHD-ga macnihii hoos buu u dhigaa wuu ataagaraynaya afartoodaba so marka qofkii in aad dhahdid uniow listiga le qoran listigaas le raaco it's not that easy saas uma fududo qofka markuu ADHD qabo waxyaala oo maaragtay oo fiicnaan kara waxaa ka mid qofka inuu saacad haysto waa fiican tahay in maaragtay waxyaalaha oo ADHD ka qaba aan u sheegno oo ay sameeyaan waxyaalaha ay sameynaya inay small task inay jijibiyaan macnaheedu intaana maanta sameyna taas camal way caawisaa video soo socda waxaan ka hadli doonaa sababta ay gabdhaha qaarkood ay ADHD qabaan noloshooda oo dhan laakiin uusan dhakhtarka uusan fahmin uusan arkin